بسم الله الرحمن الرحيم. Yurub waa qaaradda labaad ee ugu yar adduunka, waana qaaradda saddexaad ee ugu dadka badan leh. Sida oo kalena waa jasiirad lamood ay baddu kaga oodan tahay 3 jiho, waana qaarad yar oo haddana ka kooban 53 dowladood, waxaana ay masaaxadeeda ama badkeedu gaadhaysaa 10 milyan oo kiiloomitir iskuweer ah. Diinta ugu badan ee qaaraddan laga haystaa waa diinta Masiixiga, oo ay u kala qoqoban yihiin amaba ay u kala haystaan madaahib kala duwan oo isla diintaasa. Buurta ugu dheer qaaradana waxaa la yidhaahdaa Elbrus, taas oo dhererkoodu uu gaadhayo 5633 mitir. Sidoo kalena qaaradan wadanka ugu dhulka ballaadhan leh waa Ruushka, halka dalka ugu dhulka yarina uu yahay kan lagu magacaabo Vatican. Daawadayaal, haddaba haddii aynu u guda gallo ujeedada barnaamijkeennan oo ah inaynu tibaaxno sababtii qaaraddaas magaca Yurub ama Uruba loogu bixiyey, waxaynu isul taagi doonaa aragtiyo kala duwan. Ugu horreyna waxaa la sheegaa in waa hore inan amiirad ah oo uu dhalay boqor Finiqiyiinta ka soo jeeday uu jeclaaday amiir kale oo ka tirsanaa dowladda Yunaaniyiinta. Kadibna inantii inta uu la soo baxsaday amiirkii ayaa uu soo dhacay, kadibna waa uu guursaday, waxaana inantaas oo uu magaceedu ahaa Uruba loogu magac daray dhulkaas. Sidoo kalena waxaa jirta dad kale oo qaba in Finiqiyiintu ay qaaradan u yaqaaneen Urub oo la micno ah galbeed, sidaasna uu magacaasi ku hirgalay. Waxaa kale oo jira taariikhyahano aaminsan magacan inuu kasoo jeedo luuqadda Jermaaniyada ama loo yaqaano luuqadda Scandinavia, taas oo sheegaysa in ay Uruba u yaqaaneen dhulka waasaca ah, sidaas awgeedna ay qaaraddaas ugu bixiyeen Uruba iyaga oo ka wada dhulkii waasaca ahaa.